ciyaaryahan mahdi abshir cumar ayaa maanta waxa uu ka mabaxay garoonka aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho isagoo ku wajahan wadanka Tunisia halkaasi uu kusoo ciyaari doono ciyaaraha isreebka ee shotput oo ah ciyaaro ka mid ah ciyaaraha Olombikada adduunka ee lagu qaban doono dalka Japan. Laacibkan oo Soomaaliya uga qayb galaya tartanka ciyaartoyda baahiyaha gaarka qaba ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu sameeyay diyaar garow iyo sidoo kale hiddiilo uu ku muujinayo inuu ka soo hoy doono guul kulamada kala duwan ee isreebka uu ciyaari doono. waxaana uu astaan sport uu kula hadlay garoonka aadan cadde international airport inta uusan doonin ka hor isagoo sheegay in sanadkan uu guul weyn ka soo hoy doono isreebka tartanka shotputka. magacaygu waa mahdi abshir cumar insha Allah taala maantay in badan waa soo diyaarinay oo bilihii dambe waxaan soo wada tirinay xoog la soo wadnay marka waxaan maanta ugu dambeyn waxa waay xilligan bixileen waay waxaan joognaa garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde international airport aan joognaa waxaa garabkayga midig fadhiya macalinkayga coachkayga Axmed Daahir oo in badan iga soo caawiyay way aragnimo ii siiyay macnaha qaabkan u tartami lahaa iyo waxaan ku tartami lahaa wuxuu igu soo dhiirigeliyay inaan sameey karo dadka aan igu horeeyay oo asaagayga oo kala oo baahiyaha gaarka qabo taariikhda ay dhigeen inaan dhigi karo macalinkayga wuxuu siiyay talo iyo tusaalooyin iyo waana ayuu siiyay waana dhiirigeliyay teeda kale maanta wuxuu ku beegay bixitaankeena maanta oo jimcaha waxaan safar u nahay dalka Tunisia insha Allah taala waxaan sugayo safar aad u dheer maalmihii dambe waxa waay warbixinta waxa ka daawateen astaan TV ka daawateen waxaana farxad ah inaan matalayo xulka qaranka Soomaaliya mar hadda calankaas aan matalaysid wax ka sharaf badan ma jirto anaga macalinka waxaan ka tarjumaynaa shacabka Soomaaliyeed ee adduunka meel walba ka jooga tartankan wuxuu u dhaxeeyaa qaaradda Afrika wada dhaxeeya waana qualification insha Allah taala waxaan rajeey doonaa inaan ku guul aad iyo aad u weyn inaan ka keeni doono tartankaasi teeda kale waxaa noo sii dheer mar hadda matalaysid xulka Soomaaliya ama qaranka Soomaaliya hadda matalaysid qof walba waxa qasab ku weyn kugu faano anaga macalinka waxa macnaha farxad inoo ah in meeshaas laga daaro calanka heesta Soomaaliya in laga daaro oo meesha calanka Soomaaliya ina geeno kor u qaadno intaas ayaa sharaf inoo ah haddaan guuleysano Soomaaliya dhan ayaa guuleysatay hadda guul dareysanana wax guul dara horta ma jirtaba waxaaba sharaf inoo ah oo guul weyn xataa inoo ah in calanka Soomaaliya meesha geeno oo heesta calanka Soomaaliya meesha laga daaro calanka Soomaaliya kor loo qaado wax guul daraha ma jirto ama kaalinta koowaad aan galno ama kaalinta boqolaad aan galno waxa farxad inoo ah inaan sharafka calanka Soomaaliya kor u qaadno aniga kaliya taas ma sameeynin dad aniga baahiyaha gaarka qaba kamid ah ayaa taariikhda hore u soo dhigay hal ilaa maahan ayagu waa dadaaleen anagana waa dadaali doona insha Allah taala safarku ma yaro insha Allah taala tartamo kale si jiri doono oo sanadka la qaban doono waxa kamid ah Olombikada oo ka dhici doona dalka Japan caasimadiisa Tokyo insha Allah taala asagana waa isku diyaari doona safarku ma yaro Soomaalina waxa leeyahay guul waa guul soo hoyatay inaan aniga matalo dadka naafada matalo way jiraan dad kale ayaga tartamo noocaas u bixi doono waxa jir doona xataa tartamo kale oo insha Allah taala la qaban doono waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliya waxaan ii sheegaa shacabka Soomaalidu waxaan ii soo hoyatay guushaas waxa waay in maanta la yiraahdo Soomaaliya waxay ka qayb galeen tartamo caalamiya tartanka maanta ka qayb galino Soomaalida kale maanta ka qayb galay marka ma sha Allah farxada inoo tahay in tartankaas ka qayb galno tartanku ma yaro waxa soo socda xataa kii Tokyo ka dhacay oo Olombikada oo 4 sano mar la qabto ayaa soo socda kaasna waana ka qayb gali doonaa insha Allah taala wili xataa kaligay maahane waxa jir dad aniga nuuceyga oo kala ah oo meesha ka soo muuqan doono insha Allah taala waa markaa soo laaban anina macalinka insha Allah training waa sii wadi doonaa xoogan waa saar doonaa insha Allah taala tartankaas waxaan kala soo kulmana wixii guul dar aan kala soo kulmo way aragnimo ka qaadan doonaa haddii qaladkaygu dhacay insha Allah gadaal waa ka sixi doonaa laakiin horta guul dar ma jirtaba waxa jirto in Soomaaliya maanta guul weyn u soo hoyatay insha Allah taala waxaan rajaa shacabka Soomaaliyeed inay ii soo duceysaan ii soo hambalyeysaan ii soo dhiirigelisaan insha Allah taala halkan waxaa mahad celin ballaaran ugu soo jeedinaa TV-ga astaan shaqaalaha agaasimaha maamulka dhamaan waxa leeyahay waa dadaasheen dadaalkiina halkiina ka sii wada dhinaca kale tababaraha ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Axmed Cumar
axmed ayaa waxa uu isna sheegay inuu ku faraxsan yahay inay soo gaaraan ugu dambeyntii safarka islamarkaana ay kasoo hoy doonaan guulo taariikhi ah maadaama ay kulamo kusoo ciyaari doonaan wadanka Tunisia. waxaan maraynaa waqtigii ugu dambeeyay isu diyaarintii barnaamijkan uu soo idlaaday marka insha Allah waxaan rajaynaynaa horumar weyn ka sameeyno qorsheyn wuxuu ahaa in aan horumarno dadka baahiyaha gaarka qabo marka insha Allah saan rajaynayno way qurxanaan doontaa aragti fiican iyo waxa laga qabi doonaa barnaamij inuu noqon doono mid horumara oo aan ka wada faa'iideysano insha Allah waana mahadsantihiin astaan waxaan kaga mahad celinaynaa siday noo daba taagnaayeen maalintan bilawnay barnaamijkan ilaa hadda waxaan rajaynaynaa in uu noqon doono barnaamij ay horumarkeeda iyo taladeeda iyo tusaalaheeda ay qayb ka noqoto astaan waana ku mahadsantihiin waqtiga aad noo soo horteen iyo taymka aad geliseen waan idinkaga mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mahdi abshir cumar ayaa ah xidig si weyn markaasi u soo doorteen guddiga naafada ciyaartoyda. mahdi abshir cumar ayaa waxa uu nasiib u yeeshay inay guddiga ciyaartoyda baayaha gaarka qaba ee Soomaaliyeed ay u soo doortaan inuu u matalo tartanka isreebka ee shadbotka iyadoo ay noqonayso markii saddexaad oo tartan noocan oo kale ka qayb galaan ciyaaryahanada baayaha gaarka qaba waxaana ugu dambeysay koobkii loo qabtay ciyaartoyda baayaha gaarka qaba oo qayb ka ahayd Olombikadii adduunka.